Kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada wararkeena waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay mucaaradka Xasan Sheikh uu kusoo qulqulayo magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya iyo dowladda waddanka Kenya u yeertay dhammaan xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale madaxda Puntland iyo Jubbaland ee shirka ku madlan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo go'aan geesinimada ka qaatay u yeerista dowladda waddanka Kenya ee ku aadan inay isugu yimaadaan magaalada Nairobi ka hor inta uusan furmin shirka magaalada Kismaayo ee ku yeelanayaan. warbixin ku aadan ayaan idiin soo gudbin doonaa. qodobada kale waxaa ka mid noqon doono maxaa ka jira wararka sheegaya in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo go'aamiyey xilka qaadista Generaal Oduwa Yuusuf Raage mise madaxweyne Xasan Sheikh ayaa Generaal Oduwa kaga shakisan in uu noqdo mid markaasi kaga heliya madaxweyne hore Farmaajo marka ay timaado in hay'adaha dowladda muddo kordhin loo sameeyo iyo warka sheegaya in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu ka baqdan qabo in Generaal Oduwa Yuusuf Raage uu ka hor yimaado muddo kordhin walba oo Xasan uu damacsan yahay. warkii ugu dambeeyay wararka xilka qaadista iyo guuxa la xiriiro ayaanu soo gudbin doonaa. isla mid ah waxaan idila wadaagi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay dowladda waddanka Jabuuti oo si adag kaga carootay tallaabada Ciro uu ku joojiyey buugga xeer Ciise iyo khilaaf culus oo soo kala dhex galay geelaha Jabuuti sidoo kale madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro. warbixinadaas iyo kuwo kale ayaanu kusoo gudbin doonaa qaybtan haddii alla weyne uu qadaro. soo dhawaada saaxiibayaal, haddii aad saaxiibnigu cusub nagu soo biri muuqaalka like saar aragtida waxaad siisa qaybta hoose ee faalada dadweynaha ayaad noogu reebi kartaa. aan ku bilaawno wararkeena waxaanu ku bilaabi doonaa isla markaasina ugu horreysiinaynaa wararkii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay shirka magaalada Nairobi oo ay dowladda waddanka Kenya ay isugu yeertay xubnaha madasha samata bixinta Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamulka Jubbaland iyo Puntland. haddaba sida ay xaqiijinayaan ilo wareedyo lagu kalsoon yahay dowladda waddanka Kenya ayaa u yeertay dhammaan xubnaha golaha samata bixinta waxaana xogaha la helaya ay sheegayaan in golaha mustaqbalka Soomaaliya oo ay ku midaysan golaha samata bixinta iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay hadda ku sii qulqulayaan magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya. haddaba madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa galabnimadii shalay ahayd gaaray magaalada Nairobi halkaasi oo qaar ka mid ah xubnaha mucaaradku ay ku sugan yihiin halka qaar kaleetana ay ku sii wajahan yihiin maanta sida madaxweynaha Puntland iyo hogaamiyaasha kale ee mucaaradka. xubnahan ayaa magaalada Nairobi kula kulmaya wakiilo beesha caalamka sidoo kale waxay la kulmi doonaan mas'uuliyiinta dowladda waddanka Kenya. indhaha ayaana lagu hayaa xaaladda siyaasadeed ee waddanka gaar ahaan xubnahan loo yeeray ayaa wararku qaar la sheegayaan in la wadaagi doono fariin laga keena aqalka cad oo markaasi dowladda waddanka Kenya loo soo marsiiyey. haddaba arrintan ayaa dadku qaar ay ku tilmaameen ceeb iyo fadeexad weyn in dowladda waddanka Kenya ay far ugu yeerto xubnaha mucaaradka ah iyo madaxda Puntland iyo Jubbaland kuwaasi oo isku sheegay golaha mustaqbalka Soomaaliya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa siyaasiga kaliya ee ka haray u yeeristaasi isla markaasina ganafka ku dhuftay oo iska diiday in dowladda Kenya ay far ugu yeerto halka xubnaha kaleetana ay si degdeg ah u ajiibeen u yeerista Kenya. beesha caalamka oo si dhow ula socota xiisadda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan khilaafka hannaanka doorashooyinka qof iyo codka ah oo si adag ay u diidan yihiin xubnaha ku midoobay golaha mustaqbalka Soomaaliya ayaa sidoo kale magaalada Nairobi ku yeelan doona kulan gaar ah. Mareykanka oo ugu horeeyo marka la eego horyaalka wakiiladiisu xubnaha ay la kulmayaan golaha mustaqbalka Soomaaliya waxa ay la wadaagi doonaan aragtidooda ku aadan xaaladda dalka iyo muhiimadda ay leedahay in dalka ay ka qabsanto doorasho wadar oggol ah oo waqtigeeda ku dhacdo. arrimahan ayaa dib u sii dhigaya shirweynaha mucaaradka oo bishan markaasi qorshe u ahaa in uu ka dhaco magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland xilli bilooyin kooban ay ka harsan yihiin muddaxileedka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. shirweynaha Kismaayo ayaa lagu wadaa in uu noqdo midka ugu weyn ee mucaaradku ay qabsadaan iyadoo qabanqaabadiisuna ay wadaan Jubbaland, Puntland iyo sidoo kale madasha mucaaradka oo ay ku midaysan yihiin golaha mustaqbalka Soomaaliya. waxaana la filayaa in siyaasiyiin kale oo ay qayb ka ahayn golaha ay ka qayb noqdaan. shirweynahan ayaa qorshuhu waxa uu yahay in markaasi looga hortago doorashooyinka qof iyo codka ah ee hirgelinteeda ay wado dowladda federaalka Soomaaliya xilli dhowaan uu goluhu si cad u sheegay inay ka soo horjeedaan
in muddo kororsi loo sameeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyaga oo digniin culus ka soo saaray arrintaasi. Sidoo kale golahan ayaa si adag waxa uu diiday wax ka beddelka lagu sameynayo dastuurka iyo qabashada doorashooyin aan heshiis lagu ahayn oo ka dhaca dalka. Isku soo wada duube waxa ay hadda goluhu ay wajahayaan ceeb iyo fadeexadii ugu weyneed abid kadib markii dowladda Kenya oo ka mid ah dowladaha deriska la ah Soomaaliya ay qaateen u yeelis ay fartooda ay ugu yeereen inay dalkoodu ay kula kulmaan wakiilada caalamka iyada oo ay dhici kartay haddii ay la kulmayaan in wakiilada caalamka gudaha Soomaaliya ay kula kulmaan. Laakiin u yeelista Kenya ayaa ah warka ugu hadalhaynta badan baraha bulshada ee ah fadeexada ku dhacday xubnaha mucaaradka iyo hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland iyo sida madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kaga galaan gashay arrintan isla markaasina isaga diiday ceeb iyo sidoo kale fadeexad weyn oo ku dhacdo siyaasaddiisa marka la eego Soomaaliya. Isku soo wada duub xaaladda shirka magaalada Kismaayo iyo dib u dhiciisa iyo sidoo kale shirka magaalada Nairobi ayaa ah hadalhaynta ugu weyn ee warbaahinta bulshada ee wararka Soomaalida. Arrinta ku aadan hoos ayaa nagu leebi kartaa. Dhinaca kaleetana saacadihii la soo dhaafay waxaa warbaahinta bulshada si weyn u haysto warar sheegayo in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka fikirayo inuu xilka ka qaado taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya Generaal Oduwaa Yuusuf Raage. Oduwaa Yuusuf Raage ayaa ka mid ah saraakiishii ciidan ee la soo shaqeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, inkastoo hal mar xilka laga qaaday tan iyo markii uu kursiga dib ugu soo laabtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Haddana ninkan ayaa waxa uu yahay nin mar kale kursiga looga maarmi waayay hogaaminta ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya, waxaana mar kale laga dhigay taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya. Isweydiimo badan ayaa taagan kuwaasi oo la xiriira walaaca uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka qabo Generaal Oduwaa Yuusuf Raage kadib markii madaxweyne Farmaajo sida la sheegay horaanta toddobaadkii hore uu tagay guriga Farmaajo ee magaalada Muqdisho. Arrintan ayaa abuurtay baa laleeyahay kala shaki soo kala dhexgala taliyaha militariga iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Inkastoo taliyahooda Oduwaa uu hadda qeyb uu ka yahay safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisu ay ku aadeen magaalada Dooxa ee dalka Qatar, haddana dadku qaar ayaa la yaabay kadib markii madaxweynuhu uu markaasi kulan ugu yeeray madaxtooyada Soomaaliya Generaal Oduwaa isla horaanta toddobaadkan. Wararka arrinta la xiriira ayaana banaanka u soo baxay. Haddaba isweydiintu waxay tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilka miyuu ka qaadi doonaa isagoo ka baqdan qaba in uu garabka Farmaajo kaga heeliyay Generaal Oduwaa, mise waxa uu noqon doonaa mid markaasi aanan ka shakin taliyaha oo xilkiisa ayuu u sii deyn doonaa. Arrinteeda ku aadan hoos ayaa noogu leebi kartaa. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelena waxa uu si weyn kaga carooday tallaabada lagu joojiyay bandhiga buugga Xeer Ciise ee lagu qaban lahaa magaalada Saylac, iyada oo lasoo sheegayo in madaxweynaha Somaliland iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Jabuuti uu soo kala dhex galay khilaaf iyo sidoo kale mugdi la xiriira bandhiga buuggan Xeer Ciise. Waxaana dhinaca kale la sheegayaa in dowladda waddanka Jabuuti ay taageerayaan maamulka laga dhisi doono magaalada Saylac oo ay dadka deegaanka ee beesha Ciise ay doonayaan inay ka dhisaan magaaladaasi. Arrinta ayaa muujinayso in haddii ay dhawowdo in dowladda waddanka Jabuuti ay si toos ah u faragelinayso arrimaha gudaha Somaliland iyada oo markaasi ka shaqeynayso kala geynta bulshada ku dhaqan Somaliland. Somaliland ayaa go'itaankii waqooyi bari ku eedeynaysa Jabuuti iyo Soomaaliya. Haddii tani ay dhacdana waxa ay mar kale daboolka ka qaadi kartaa xaqiiqada warar badan oo Somaliland horay ay u sheegtay. Isku soo wada duub macluumaadkii iyo xogihii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in magaalada Saylac hadda ay ka taagan tahay xaalad aysan Somaliland ku faraxsaneen kadib markii halkaasi looga dhawaaqay dowlad goboleed cusub oo la sheegay inuu hoos tagi doono dowladda federaalka Soomaaliya. Warbixinadaas oo idil arrintaada hoos ayaa noogu leebi kartaa daawada. Intaanu ku kulmi doono mid lacana wararkan waxaanu idinkaga tegaynaa nabad iyo warsan.